Audio Jungle. Audio Jungle. waddanka Mareykanka ayaa digniin ka soo saaray weerar uu Shiinuhu la damacsan yahay waddanka Taiwan oo muddo khilaaf ka dhaxeeyay isaga oo Mareykanku sheegay in ay mar walba taageero la garab joogaan jasiiradda Taiwan. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada badda waddanka Mareykanka oo lagu magacaabo Admiral Philip Davidson oo ah taliyaha guud ee ciidamada badda Mareykanka ee ku sugan saldhigyada ku kala yaala badweynta Hindiya iyo Pacifica ayaa sheegay in ay heleen xogo muujinaya shirqool ballaaran oo waddanka Shiinuhu ku doonayo in uu ku qabsado ama weerar dagaal ku qaado jasiiradda Taiwan taasi oo qaadan karta ilaa 2027 sidoo kale uu Shiinuhu damacsan yahay in uu soo weeraro saldhigga jasiiradda Guam ee Mareykanku gacanta ku hayo 6 sano wax aan ka badnayn ama ka soo gaaban ayuu Shiinuhu ku doonayaa in uu cir iyo dhulba ka qabsado Taiwan waana mid kamid ah qorshayaasha cusub ee ay dhamaystireen una yaala xukuumadda Peking sida waxa yidhi Admiral Philip Davidson oo warbaahinta la hadlay halka uu sidoo kale sheegay in Shiinuhu mar walba isu diyaarinayo sidii uu u qabsan lahaa jasiiradda Guam oo uu Mareykanku ku leeyahay saldhig weyn oo military taliyaha guud ee ciidamada hawlgalka Indo-Pacific oo ah ciidamada Mareykanka ee ku sugan ama korjoogteeya biyaha badweynta Hindiya iyo Pacifica oo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa inay Shiineysku dardargeliyaan mashruucooda ku wajahan bedelidda Mareykanka oo ah mashruuc ay doonayaan in ay ku baabi'iyaan saaxiibada Mareykanka ee dunida iyo waliba xataa in ay isku dayaan sidii ay u kobcin lahaayeen quwadooda military iyagoo oo ku guda jira qorshe ballaaran oo ku wajahan Mareykanka kuwaasi oo ay ku rabaan in ay ku noqdaan quwadda koobaad ee dunida dhaqaale ahaan iyo military ahaanba arrintaasi oo aan qabo inaanay ku guulaysan doonin waxa ay rabaan in inta aan la gaadhin sanadka 2050 ay doonayaan in ay ka sara maraan Mareykanka waxa kale oo ay doonayaan oo ay ku guda jiraan qorshe ballaaran oo wax ka yar 6 sano ay ku doonayaan inay gabi ahaanba kaga takhalusaan jasiiradda Taiwan oo ay dib ugu soo celiyaan dhulweynaha Shiinaha saas waxa yidhi taliyaha guud ee ciidamada hawlgalka Mareykanka ee Indo-Pacific Admiral Davidson wuxuu intaasi ku daray waxaan ka baqayaa in ay doonayaan in ay goor hore gaadhaan himiladooda Taiwan waxay ka mid tahay himilooyinka ay mar walba ku taamayso xukuumadda Beijing waxaanan u malaynayaa in hanjabaadoodu ay muuqato 10 sano ee soo socotana la arki doono wax weyn oo gobolka ka dhaca oo ah haddii aan cadeeyo isku dayga Shiineysku ku doonayaan in ay kula wareegaan jasiiradda Taiwan 6 sano ma aha wax weyn ama waqti dheer marka laga hadlayo xaalad noocan oo kale ah waxaan aaminsanahay in ay tahay waqti aad u yar waana mid u baahan in laga diyaar garoobo dhibaatada uu Shiinuhu ka wado dunida saas waxa yidhi Admiral Philip Davidson oo walaac ka muujiyay quwadda weyn ee dalka Shiinaha oo ah mid gaadhay heer ay saraakiisha Mareykanku markii ugu horeysay si toos ah walaaca ay qabaan ay muddooyinkii ugu dambeeyay warbaahinta u soo marinayaan dalka Taiwan oo ay ku nool yihiin qiyaastii 23 milyan oo qof ayaa waxa maamulay muddo 75 sano ah talis u qaxay jasiiradda Taiwan kadib markii nidaamka shuucigu la wareegeen awoodda dhulweynaha Shiinaha intii uu socday dagaalkii sokeeye ee Shiinuhu si kastaba ha ahaatee xukuumadda Beijing waxay u aragtaa Taiwan qayb muhiim ah oo aan marnaba noqon karin dalka madax bannaan xukuumadda Beijing iyada oo ku dooda in Taiwan ka mid tahay dhulka Shiinaha waxaana xisbiga shuuciga ah ee talada Shiinaha haya uu mar walba ku dooda kuna celceliya ballanqaadyo uu ku sheego in uu dib ugu soo celin doono Taiwan xayndaabka dhulka Shiinaha iyo in uu jasiiraddaasi xoog kula wareegi doono waxaase mar walba digniinahaasi ka jawaaba Mareykanka oo sheega in Taiwan ay tahay deegaan u baahan in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo sharka Shiinaha isaga oo sheega in Shiinuhu haddii ay duulaan ku soo qaadaan ay difaaci doonaan Mareykanku ciidamo kala duwan oo Mareykanka ah ayaa ku sugan biyaha jasiiradda Taiwan oo uu sheego in ay tahay dal madax bannaan oo loo baahan yahay in laga ilaaliyo gardarrada Shiinaha oo ah waddan quwad ah oo ay xafiltamaan Mareykanka waddanka Mareykanku waxa xusid mudan in uu joojiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ula lahaa caasimadda Taipei ee xukuumadda Taiwan sanadkii 1979 si uu ugu aqoonsado Beijing in ay tahay wakiilka rasmiga ah ee Shiinaha balse wixii intaa ka dambeeyay haddana dib ayuu u soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed isaga oo u dhaqma taabadelkeeda qorshe lid ku ah oo uu kaga badheero oo aanu qarsan xukuumadda Washington weli waxay tahay xulufada ugu weyn ee Taiwan suuqa ugu weyn suuqyadeeda dhinaca hubka ayay ka mid tahay Taiwan isaga oo ku daldala
sanad walba hub noocyo kala duwan ah. waxaanu sanad walba Koongareeska Mareykanku ansixiyaa qorshayaal uu Mareykanku ku garab joogsanayo hanashada badda koonfurta Shiinaha. waa hami iyo damac uu mar walba ku shaqeynayo Mareykanku oo ah in uu gebi ahaanba la wareego biyaha badda koonfurta Shiinaha, halka taa beddelkeeda uu Shiinuhu isna nafta dul dhigayo in uu gacanta ku qabto biyaha baddaasi oo aanu Mareykanku u soo dhawaanin. hamiga Mareykanka ee hanashada badda koonfurta Shiinaha waa mowduuc xasaasi ah. waa hami ah damac uu Mareykanku mar walba ku doonayo oo uu ku shaqeeyo oo ah inuu gebi ahaanba kula wareego biyaha badda koonfurta Shiinaha, halka taa beddelkeeda uu Shiinuhu isna nafta dul dhigayo in uu gacanta ku qabto biyaha baddaasi oo aanu Mareykanku u soo dhawaanin. kadib markii xukuumadda shuuciga ah ee Shiinuhu ay adkaysay gacan ku haynta adag ee ay gacanta bir ah ku qabatay jasiiradda Hong Kong, waxay xoojinaysaa sidii ay digniino ugu diri lahayd xukuumadda Taiwan ee fadhida caasimadda Taipei. waxa uu Shiinuhu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulayaa sidii uu u ilaalin lahaa Mareykankana uga horjoogsan lahaa marinbiyoodka Taiwan ee kala qaybiya jasiiradda Taiwan iyo dhulka waddanka Shiinaha. waxaana goobtaasi lagu tilmaamaa mid ka mid a goobaha adduunka ugu halis badan, maadaama laba quwadood isku hirdiyi karaan saacad walba. inkasta oo fadhiisimada ciidamada Mareykanku ku leeyahay dhulkaasi ay ka fog yihiin marinbiyoodkan, haddana waxa uu sameeyaa waqtiyada qaar kormeer dhinaca duulimaadyada ah oo uu Shiinuhu ka digo. taliyaha ciidamada Indomam Philip Davidson oo la hadlayay wakaaladda AP waxa uu sheegay in Shiinuhu sidoo kale hami ka leeyahay biyaha koonfurta Shiinaha oo ay ku jiraan meelaha ay xukumaan dawladaha Vietnam iyo Philippines, badda Shiinaha ee bariga kaga beegan dhulka Shiinaha, iyo weliba xataa jasiiradaha Senkaku ee Jabbaan maamusho iyo Himalaya oo ah buuraleyda ay gacanta ku hayso Hindiya. waxaasi oo dhan oo uu ninkan admiraalka ay ku sheegay damac uu qabo Shiinuhu, isaga oo ka digay in khatarta Shiinuhu aanay intaasi ku koobnayn ee ay tahay xataa in laga hadlo hanjabaadaha ay xukuumadda Shiinuhu mar walba u dirto Guam oo ah jasiiradda Mareykanka ee badweynta Pacifica. Guam waa bartilmaameedka maanta, ayuu yidhi, isaga oo xasuusinaya in sanadkii hore ciidanka Shiinaha ay sii daayeen muuqaal dacaayad ah oo muujinaya duuliyayaal Shiinays ah oo weeraraya saldhig military oo Mareykanku ku leeyahay jasiiraddan oo 2500 oo kiiloomitir ka xigta dhinaca bari waddanka Philippines. Admiral Davidson wuxuu senatarada Mareykanka ugu baaqay in ay ansixiyaan in la keeno cutubyo ka tirsan ciidamada militariga Mareykanka oo loo soo daadgareeyo jasiiradda Guam iyo weliba hubka jiilka cusub waxa uu ugu yeedhay oo ah qalabka dagaal ee ugu dambeeyay ee Mareykanku soo saaro. waxaan fariin u diray aqalka Koongareeska Mareykanka, waxaana jira qorshe cusub oo ay dawladdeeda cusub ee Mareykanku isku diyaarinayso in ay il gaar ah ku eegto xaaladda biyaha Shiinaha. waxa aanu doonaynaa in aanu ka hortagno sharka Shiinaha. Mareykanku ma rabo in uu waxyeelo cidna ama dadku duulo, balse u dulqaadan maayo in Shiinuhu daandaansi ka wado badweynta Pacifiga iyo badweynta Hindiya iyo meelo badan oo ka tirsan qaaradda Aasiya. sidaas waxaa yidhi Admiral Philip Davidson. sarkaalkan sare ee ciidamada Mareykanka uu hadlay ayaa waxa kale oo uu intaasi ku daray in Guam ay tahay in la difaaco oo loo diyaargaroobo halista mustaqbalka ka imanaysa Shiinaha, maadaama ay aniga iila muuqato, ayuu yidhi, in Guam aanay ahayn oo keliya meel aan u malayno in aan ka dagaalami karno, waa meel ay tahay in aan u halganno. sidaas waxaa hadalkiisa ku soo koobay Admiral Davidson oo fariin digniina u direeyay waddankaasi Shiinaha. saaxiibayaal, muuqaalkaasina halkaas ha inoo joogo. Audio Jungle. Audio Jungle.